بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، cashirada taxanada ee halkan inooga bilaabmi doono oo mowduuc ahaan aan u bixinay talooyinka nolosha oo socon doona si toos ah tv-ga caalamiga ah 5 tv biidn illaahi tabaaraka watacaala. talooyin aan ka soo aruuriyey min alwaxyi almubiin, qur-aanka iyo sunnadii nebi maxamed sal allahu alayhi wasalam, iyo talooyin ay bixiyeen dadka khibradda iyo da-da iyo cinrada u saaxiibka ihi, daraasooyin lagu sameeyey, kutubo laga qoray, su-aalo la weydiiyey dadka da-da ah, lagu yiraahday maxay ahaan lahayd wixii aad jeclaan lahayd inay markaad yareed aada ogaato ee nolosha ay ku bartay. waxyaalahay ku jawaabeen khulaasadoodana biidn illahi tabaaraka watacaala ayay duruusteena ku qaadan doonaan. waa talooyin muhiim ah, anfacayo qofka weyn qofka yar, rag iyo dumarba. waa talooyin noloshaada wax badan oo kamid ii ka bedeli doono biidn illaahi tabaaraka watacaala. ayuha alaxibatu fi llah, taladu waxaa weeye qofka wax uu garanayo inuu ku anfacayo ama inuu ku dhibayo inuu kuu sheego. tusaale gaaban, qof baa ka hor yimaaday, wuxuu ku yidhi hortaada waxaa ah askar dadka xirayso, waxayna ku xiraysa inaadan xirnayn bahalka afka lagu xirto maaska ee maaska xiro. waa talo, waad ku intifaacaysaa, waayo wuxuu soo ogaaday oo uu soo arkay ayuu ku faa'iideeyey. talooyinku waa noocaas, waa wax nafsadaada u dan ah, ama wax dhib kugu ihi kaaga digayo, ama wax ku anfacayo ku tilmaamayo. haddaba waxa talada bixiyo, waxa ugu khibrad badan, waxa ugu cilmi badan axadkana abuuray. waayo axadkana abuuray isagaana abuuray, saa awgeed wuxuu garanayaa waxana anfacayo iyo waxana dhibayo, isagaa ugu garasho badan. qof walba waxa uu sameeyo isaga ayaa looga dambeeya. aaladda ama teknolojiga qofka sameeyey injineerkeeda ah ayaa wax laga weydiiyaa. basharka iyo bini aadamka iyo makhluuqaadkana ilaahay baa abuuray. alaa yaclamu man khalaqa wahuwa alatiifu alkhabiir. alaa yaclam, miyuusan aqoonin, uunan garanayn waxa anfacaya iyo waxa dhibayo man khalaqa kii abuuray? bala, waa uu garanaya, isagana u garasho badan. saa awgeed waxaynu insha allahu tacaala diiradda saari doonaa talooyinkeenna waxyiga. waxaa kaloo ugu garasho badan oo ilaahay subxaanahu watacaala cilmigiisa marka laga soo haro ee khaaliqa ah, rusushiisa ilahay subxaanahu watacaala uu soo diray. waayo rusushu waxyi min allahi tabaaraka watacaala ayaa lagu soo dejiyey. saa awgeed min allahi alcalaami alghafuur alcaliimi alxakiim alladii wasaca bikulli shayin cilman ayaa cilmi xaggooda iyo waxyi ooga soo degaya. saa awgeed waxaan diiradda saari doonaa sunnatu muxamed sala allahu calayhi wasalam min alaxaadiidi saxiixa, inaynu talooyin nafsadeenna anfacayo kasoo qaadano. kadalika diinteennu waxayna amartay inaan ka faa'iidaysano da-da iyo khibradda. qofka kaa weyn, ee cinrada kaa weyn, ee gu kaa weyn, khibrad buu kaa wen yahay. inaad la fadhiisato, la sheekaysato oo tiraahdo ila tali, aad iyo aad baad oga faa'iidaysanaysaa, weliba khaas ahaan qofka caqliga lagu tuhmayo iyo cilmiga. idan iyadana ma dayici doono inaan caqliga iyo khibradda laga aruuriyey dadka ahlulcilmiga ah, ahlulcaqliga ah, khibradda iyo cinrada u saaxiibka iyo wixii laga faa'iideeyey talooyinkana insha allahu tacala inaanu darustiina ku qaadan. haddaba talada koowaad ee talooyinka muhimka ah ee nolosha ku saabsan ee qofka muslimka ihi loo baahan yahay inuu qalbiga iyo maskaxda ku hayo waxaa weeye walalaakhiratu khayrun waabqa. walalaakhiratu khayrun waabqa waa talo cajiib ah. ilaahi subxaanahu watacaala jala jalaaluhu wacaduma sha'nuhu ayaa qur-aankiisa nagula taliyey, wardad yahow, walalaakhiratu aakhiro ayaa khayrun idin khayr badan inaad ku dadaashaan ood u shaqaysataan, wa abqaa u baaqi ahaansho badan, u joogto ahaansho badan, waayo adduunku wuu dhammaanayaa, wakhtigiisana wuu kooban yahay. idan falaa taguranakum alxayaatu dunya. idan qofka muslimka ihi ilahi wuxuu kaala talinaya, war adduunka yuusan ku kadinin, waa gaaban tahay noloshiisa. war qof cumrigiisaba 63 haalibu cumri ummati maxamed sal uu yahay, inuu dhimanayo yaqiinsan, intaa dhimashadiisa iyo dhalashadiisa udhexaysana xanuun iyo imtixaan iyo tajaarub ay jirtahay, yaqiinsan
in la isa soo saarayo oo bacthi iyo isa soo saarid ay jirto oo midani aan lagu waareynin in yar aad noolaanayso walal aakhiratu khayrun wa abqaa marka waxaa kuu khayr badan kuuna baaqi ahaansho badan oo daarul khuldi wa daarul qaraari ah maalinta qiyaamada inaad u shaqaysato waa talo muhiim ah oo qof kasta oo muslim ihi inuu qalbigiisa ku haya ah adduun iyo aakhiro hadday isku kaa hor imaadaan inaad aakhiradaada hormariso bimacnaa adduunku hadday laba shay isku kaa yimaadaan waxaad ka cabsanaysa inuu aakhiradaada dhib kuu keeno inaad tirahdo adduunku wuu gaaban yahay ilahay dartii baan oga tegaya aakhiradaydaan ilashanaya bimacnaa man taraka shay-an lilah cawadahu allahu khayran minhu way waxay qofki ilahi subxaana wa tacaala dartii isagoo maalinta qiyaamada iyo ajir iyo thawaab ka baqayo maalinta inuu hoogu ba'o ilahay dartii wax oga tago ilahi subxaana wa tacaala waxa uu ka tagay wax ka khayr badan ayuu bedelkeeda siiya talada koobaad talooyinka nolosha uu muhimka ee uu saldhigga ihi waxaa weeye aan ka ambaqaadnay walal aakhiratu khayrun wa abqaa talada labaad waa talo nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam waxyiga iyo nuurka uu ka tegay ah nuurka nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam uu ka tegay waa talooyinka adduunka waxa la dhuuxdo ama la dhugto ama horumar lagu gaaro ugu khaalisan khaas ahaan xadiiskan soo socdaay talada nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam uu ku bixiyey ma garanayo noloshayda inta aan wax akhrinayay talo qof bini aadam ah uu bixiyo oo horumar qofka adduunkiisa iyo aakhiradiisa uu ku gaaro oo aan waxyiga aan ka ahayn xadiiskan waa xadiis shariif ah waa xadiis cadiim ah adduunkaaga iyo aakhiradaadaba kuu soo koobay nabi sal alay waslm wuxuu yidhi waa talada labaad ixris calaa maa yanfacuk wastacin billaah walaa tacjas waa 3 kelimadood macnaheeda laakiin waa noloshaadao dhan allahu akbar saas way macnaheeda marka nabi sal marka laleeyahay jawaamic alkelim baa loo keenay uutiya bijawaamic alkelim nabi maxamed sal marka la odhanayahay waa sidaas waa 3 kelimad laakiin waa noloshaadao dhan ayib ixris calaa maa yanfacuk macnaheedu waxaa weeye ixris waa ku dadaal ha ka caajisin ha ka noogin ha ka cagajiidin ixris ku dadaal calaa maa yanfacuka waxa ku anfacayo adduunyo iyo aakhiraba lama kala saarin calaa maa yanfacuk adduunkaaga waxa ku anfacayo ku dadaal ganacsigaaga ku dadaal horumarinta nafsadaada ku dadaal tijaaradaada ku dadaal ixris calaa maa yanfacuk aakhiradaada ku dadaal daacadaada ku dadaal cibaadadaada ku dadaal ixris calaa maa yanfacuk waxa ku anfacayo ku dadaal allahu akbar nabi sal wuxuu dabdhigay dadaalkaaga oo keliya laguma meel gaaro wastacin billahi ilahay kaasho ilahay garab weydiiso arrin walbood ku jirto waxbarashadaad ku jirto wastacin billaah ilahay ugu kaalmeeyo ilahu i bardheh ganacsigaaga wastacin billaah ilahu i kaalmeeyo i barakee dheh awlaadaada wastacin billaah idan ixris calaa maa yanfacuka waxa ku anfacayo ku dadaal wastacin billaah ilahi subxaana wa tacaala kaasho iimaankaaga iyo yaqiintaada waa in ilahi subxaana wa tacala ay ku tiirsanaataa wax suurtagelaya inuusan jirin ilaa ilahi subxaana wa tacaala wuxuu idma mooyaane idan waa in qalbigaaga uu allah ku xidhan yahay asbaabtiina aad la imaanayso dadaalayso ixris calaa maa yanfacuka wastacin billaah walaa tacjas ha caajisin allahu akbar markaad ku dadaashay waxa ku anfacayo qoraalkii dadaalkii imtixaan diyaarintii hor uwadii wax samayntii hawshaadii adduunya midda aakhiro markaad dadaal ku bixisay ilaahayna aad kaashatay waxaa laga yaabaa in sidii aad rabtay si aan ahayn ay xaaladda u timaado walaa tacjas ha noogin waxaa laga yaabaa inaad yara kufto istaag boorka iska tirtir walaa tacjas ha caajizin ha isdhiganin ha isdhiibin don't give up bay dhahan ha isdhiibin waay ha isdhiibin haddaad kufto istaag walaa tacjas allahu akbar waa talada labaad ee nolosha uu muhim ah qofka muslimka ihi inuu goos dambeed ku haasto ixris calaa maa yanfacuk wastacin billaah walaa tacjas ayib talada saddexaad ee talooyinka nolosha uu khaaliga ah ee qofka muslimka ihi in lagula teliyo oo khibradaha loo soo guuriyo anfacayo fi dunyaahu wa aakhiratihi waxaa ka mid ihi qofka muslimka ihi inuu xadido waxa uu ka tago iyo waxa uu qaato si kale haddaan u dhaho qofka muslimka ihi waa inuu mabda uu ku dhinto uu ku noolaado uu leeyahay bimacnaa qofka inuu qiyam uu ka duulo oo lama dhaafaan ah oo uu ku dhinto ku noolaado inuu leeyahay wey
qiyamka caamka ah ee la wada wadaago runta waa mabda cajiib ah oo qofka in lagu yaqaano qiyamkiisa iyo akhlaaqiyaadkiisa inay kamid ahaadaan la rabo. amaanada kuwaasoo dhan waa qiyam alcaalamiya, akhri akhlaaqiyaad guud oo qofka muslimka ihi loogu imaado, loogana tago, laguna tilmaamo inuu lahaado wey. waxaa kamid ah qiyamka muhimka iyo qofka muslimka ihi loo baahan yahay inuu mataqaanaay ku dul dhinto. xuriyatii laysat lilbayc, xuriyadaada, shaksiyadaada xuriyad aad u leedahay oo sharciga uu xuriyadda kuu siiyey, inaa cid bal ku tasarufin xuriyadaada. allahu akbar. xuriyadda qofka muslimka ihi waa inuu xuriyadiisa hoosgeynin ilaahay subxaanahu wa tacaala meeluusan hoosgeynin. waa inaadan xuriyadaada cid kale ku xirin. waa inuu qofka muslimka ah xur uu ahaado oo uu ku noolaado asaga oo xur ah. waa shay cajiib ah. xuriyadaada marka inaysan beyc ahaynin, cid kale aadan ka iibinin, ama axzaab aadan ka iibinin, ama ashkhaas aadan ka iibinin, ama sheekh aadan ka iibinin, ama dariiqo aadan ka iibinin, ama aadan dowlad ka iibinin. xuriyadaada ilaahay subxaanahu wa tacaala ku siiyey inaad ku tamatucdo adigoonan shaksi ka cabsanaynin. walaa yakhaafu fi llahi lawmata laa'im, adigoo cid kale inay ku eedayso aanan oga baqaynin. rabbigaaga subxaanahu wa tacaala wuxuu ku farayna samaynayso, wuxuu kaa reebana ka reebtoomayso, xor u ah. sida aad u aragto masaladaada diinta ah, sida aad u aragto masalada inay u socoto, sida aad u aragto xaqa inuu yahay, inaad u oran karto, inaad u raaci karto, inaad ku dhawaaqi karto, inaad ku dhaqmi karto. idan xuriyadaada waa qiyamkaaga asaasiga ah, waa waxa aadan ka tegin marnaba. nacam. waxaa kadalika muhim ah qiyamka iyo akhlaaqiyaadka valuega inaad ku dhaqanto loo baahan yahay. caqligaaga inaadan iibin, waa talooyinka muhimka ah. caqligaaga inaadan iibin. diinta waxay kugu xurmaysa waa caqliga. diinta waxay waajibaad kuu saartay waa caqliga. waqtiga caqligaaga la waayo mukalaf ma tihid, majnuun baa tahay, ama waxbaba kuma saaran, waxbana lagaama qoriyo. axibatii fi llah, caqligaaga cid ha ka iibin. saa awgeed ilahi subxaanahu wa tacala wuxuu ina amray shay walba inaan ka fiirsanno, ka fikirno, caqliga ku miisaanno. afalaa tatafakkaruun afalaa tacqiluun ina fi dalika laaayaatin liuli lalbaab. macnaheedu waxaa weeye miidan fikirayn, miidan caqli lahayn, aayadahaas iyo calaamadahaas waxay wax tarayaan kuwa caqliga u saaxiibka ihi. caqligaaga marka wax ku miisaan. waxyiga waxa uu na faro aamanaa billahi warasuulihi wey. haddii lagu yihahdo qaala allah qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam, aamantu billahi wabirasuulihi waa inaad tirahda wey. sadaqtu billahi wabirasuulihi inaad tirahda wey. waxyigu ka hadal ma lahan, waayo waxaan soo sheegnay alaa yaclamu man khalaqa wahuwa latiifu lkhabiir wey waxa hadlayo, iyo cidda uu waxyiga kusoo dejiyay oo rasuulkiisa amiinka ah. intaa waxaa ka soo haray caqligaaga ku miisaam iyo cilmigaaga. caqligaaga ha iibin. qofa waxaad arkaysaa maalan nin baa wuxuu ugu sheekaynayaa yani cilmi iyo caqli aanan ahayn. anigaa duulay, wiilkaygii yaraan iga daba duul baan dhahay, aniga bismi illaahi iyo magac ilahay baan ku duulay. wiilkii yaraayna waxaan dhahay aniga magacayga dheh. wuu i raacay magacaygu dhe, markuu dhex damarayo magaci ilahay ku dhawaaqay wuu soo dhacay. caqligaaga waxaa sidaad u aaminaysa, caqligaaga ma iibsatay. say ku suurta gashay magaca ilahi subxaanahu wa tacaalana loogu soo dhacay, magacaagana loogu duulay. idan caqligaaga beyc ma ahan, caqligaaga iib ma ahan. caqligaaga cilmiga ilahi subxaanahu wa tacaala ku siiyey iyo caqligaaga waa waxaad mukalaf ku tahay, waa waxa waajibka kugu saaran yahay. haddaad majnuun noqoto waxba kuma saaran. idan caqligaaga ha iibin, cidna ha ka iibin, xisbi ha ka iibin, xaraka ha ka iibin, qof inuu mataqaanaa intuu ku yihahdo bamba kugu xiro soo qarxi. caqligaaga ha iibin. caqligaaga ilahi subxaanahu wa tacaala ku siiyey cilmiga iyo waxyiga iyo nuurka oo iftiinkana ku darso. idan caqlaka laysa lilbayc. nacam. taladaasi waa taladii afaraad. axibatii fi llah, talada xigta waxaa weeye iqtinaam alcumr. iqtinaam alcumr, qodobka afaraad, inuu qofka ka faa'iidaysto waktigiisa. waktigaaga waa ra'sumaalkaaga. bimacnaa cumrigaaga oo aad ka faa'iidaysato macnaheedu waxaa weeye in intaad meel fadhiisato, warqad iyo buug qaadato, cumrigaagan yar ee 63 iyo ka yar u dhaxeeyo, waxa aad doonayso ugu muhiimsan inaad gaarto maxay tahay? aakhiradaada
haddii nafta lagaa qabto waxa ugu weyn adigoo gaartay oo aadan shallaynaynin oo darajo sare aad rajaynayso maxay tahay? adduunkaaga martabada aad doonayso ama dhaqaale ama dunyo aad ka gaarto maxay tahay? kadib aad u kala hormariso alaham falmuhim, kan kuu muhimka ah kan kasii muhiimsan. ikhtinaamu lcumri wakaas ah. bimacnaa imaam albukhaari, imaam shaafici, a'imada waaweyn, dadka injaazaadka sameeyey ee adduun iyo aakharoba heer ka gaaray 24 saacadood sida aad 24 saacadood u haysato habeenkii iyo maalintii ayay u haysteen, laakiin waqtigooda ka faa'iidaysteen. waqtigooda ayay waxay geliyeen wax anfacayo. qofna fadhi ku daru ku fadhiyaa shuu cabayaa 20 saacadood 7 saacadood 3 saacadood maa laa yacni buu ku jira, ama tv iyo riwaayado aan qusayni buu ku daalayaa, ama ciyaaro wadan kale barafka da'ayo ayuu mataqaanaa daawanaya, isagana kuleel baa hayo. dad xaaladooda ay kala duwan tahay waqtigiisa ku dhamaynaya. idan wixii waqtigaaga aad geliso ayaa biri aad guranaysaa. haddaad liin abuuratay liin baad goosanaysaa, mir macan haddaad abuuratayna miro macan baad guranaysaa. miro qaraar iyo maalaa yacni haddaad abuuratayna maalaa yacni iyo miro qaraar iyo nolol xun baad guranaysaa mustaqbalkaaga. ikhtinaamu lcumri, waqtigaa ka faa'iidayso qofka muslimka ah. waqtiga firaaqada aad haysato ka faa'iidayso. nacam, ikhtinaamu lcumri waxyaalaha ugu muhiimsan wey. talooyinka cajiibka ah ee muhimka ihi qofka muslimka ihina anfacaya waxaa ka mid ihi oo qodobka 5aad, laa shay'a yaduumu ila alabad. arrinkaasi meel ku qoro. xaalad walba oo aad soo marto waxaad yaqiinsataa xaalad daa'im ahaanayso weligeed oo sidan ahaanayso ma jirto. arrinkaa markaad yaqiinsato waxaa kaa dhaadhacayso inaad ahaato qof muctadil ah mar walba. xaalad walba uu ku sugan yahay muctadil, dhexdhexaad ah, wanaagsan. hadduu nimco ku jiro iyo xoolo ilaahay siiyo, wanaag ilaahay u furo, shaqo fiican helo, aysan la tegaynin, muctadil uu ahaanayo. xanuun hadduu jiro, dhibaato hadday timaado, cibaadadiisa iyo khayrkiisa iyo wanaagiisa iyo sadaqadiisa aanan ka tegaynin. qof yaqiinsan laa shay'a yaduumu ila alabad, war wax daa'imayo ma jirto. maanta haddaad shaqo haysato, qofka aanan shaqada haysanin ama meesha aad joogto aanan joogin, caawi. adigu weligaa meesha ma joogi doontid, ama waad ka tegi doontaa, ama waa lagu bedeli doonaa, ama waad ka dhiman doontaa. xaaladuhu isbedelaya macnaheedu. bimacnaa maadaama ay xaaladuhu isbedelayaan, waxaad u dhaqantaa si xaaladda hadday isbedesho dhib uusan kaaga imaanayn. kun muctadilan fi jamiici xayaatik, liannahu laa shay'a yaduumu ila alabad. waxaa muhim ah oo talooyinka qofka muslimka ihi loo dardaarmo noloshiisa ka mid ihi inuu isweydiiyo wax walbuu samaynayo, limaada afcal? sababta aan u samaynayo maxay tahay? sababta aan u samaynayaay arrinkani maxay tahay? inuu isweydiiyo qofka, limaada afcal. halkaa waxaa kaaga soo baxaya waxa aad u samaynayso aakhiro ilaahay dartii, waxa aad u samaynayso arrin iyo natiijo inaad ka gaarto, waxa aad u samaynayso hadafkaad xadidaysa. idan waxaad isweydiisaa maxaan u samaynaya? halkaa waxaa kaaga soo baxayso talo muhim ah oo culummadu ay kusoo khulaaseeyaan: kun waaxidan liwaaxidin calaa waaxidin. kun waaxidan, qof horta hal meel loogu soo hogaago ahaw. qof lagu wajiile ah ha noqon, qof lagu wajiile ah oo isbabedela ha noqon. kun waaxidan, shaksi waaxid ee noqo oo hal weji loogu yimaado noqo. liwaaxidin, shaksiga waaxidka ah oo caabudayo oo uu leeyahay rabbi waaxid ah, bimacnaa allah subxaanahu wa tacaala oo waaxid oo keli ah ku lahaado. yaa ku amray inaad caabuddo keligiisa allah, wamaa umiruu ila liyacbuduu allaha mukhlisiina lahu ddiin, wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun. idan liwaaxidin, rabbi waaxida subxaanahu wa tacaala u ahaw, oo ilahay subxaanahu wa tacaala keyrkiisa waxba ha ka dayin. ilahay waxaa ka soo haray waa daciif, ilahay waxaa ka soo haray waa daciif, isaga ayaa u baahan in loo duceeyo. ilahay waxaa ka soo haray waa loo duceeyaa, ilahay oo keli ahna waa la barya subxaanahu wa tacaala. idan liwaaxidin, rabbi oo keli ah ku lahaado. cid kalood ka baqday aysan jirin, cid kalood cibaadada ilah wax ka sayaysan jirin,
cid kale wax ka daydayaysan jirin calaa waaxidin hal wadana ku sugnow oo ah wadadii ilaahi subxaanahu wa tacaala kuu jiday waana hada siraaطii mustaqiima fattabicuuh calaa waaxidin dariiqaasna ku dul sugnow oo keli ah ha ka leexleexanin dariiqyo badan oo shayaadiintu ay ka jexjexayaan ayaa jira dariiqa mustaqiimka ihi ha ku leexanin calaa waaxidin dariiqada oo keli ah ku sugnow idan axibatii fi llah talooyinkaasi qofka muslimka ihi talooyinka noloshiisa wax badan oo kamid ka bedeli ay kamid yihiin biidn illahi tabaaraka wa tacaala darsiga xigo ayaan sii wadi doonaa talooyinka insha allahu tacaala talooyinkan xigi doona ilaa cashirkiisa kale aynu ka gaarayno sida iyo nabadgelyo ee idinka talagaya wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu